بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kan soo gudbinayaa gabay magaciisa la yiraahdo dhambaal waxaan kaga hadlayaa doorashada wuxuuna ku socdaa gudaha bulshada Soomaaliyeed caalamka meel kasta ay kaga nooshahay gaar ahaan wadanka gudaha wadanka Soomaaliya iyo qof kasta rag iyo dumar oo ay khusayso doorashada oo door ku leh inuu ka qayb qaato ama cod ha bixinayo ama xagga ka wado ama xagga wax ka wado qof kasta oo doorashada door ku leh inuu ka qayb qaato inuu si gaar ah gabay u sii taabanaya sida admiriisa waa ka dhadhasan doontaan dardaaranka guud iyo wacyigelintiisuna waa idin wada qusaysa dhammaan gabayga dhambaala sidan u dhacaya bismillaahir rahmaanir rahiim indhoweyd badaleydii gabay waalidii dhigay dhinacayga wataan u turay dhaaf ismaan horane dhigihiina fura maanta waa dhool guyoday dhibaatana ma faalayo iyo dhaciyo duulaani dhaawaca tolkay iyo bulshada waa ka dhididaayo afrikaba dhexyaal baan u ahay dhaafba maansada markii ay dhanaanaato baan dhiiri geliyay ugmad iyo ujeedada haddaan idin dhegaysiiyo dhambaalkaygu Soomaaliyey dhaxalka weeyaan doorashadan dhacaysa haddeer loo dhuuleeyahay kana aniga ii dhow horaad ugu dhamaateen waa inaad dhaqaaliyo waqtigan dheef ka durugtaan dhulkuna maanta wuxuu eegayaa saad u dhaqantaan calankani dhibaat maaha aan looba dhololeyni goolkiisu wuxuu dhowrayaa saad u dhalisaan hadba kaalintii loo dhigu kaaga dhurayaa dhallaanka iyo aayaha dambaan dheehda leeyahay dhawaaqaygu waa durugsan yahay dhihitinkiisii ratiguba la dhalan dhool rarkii loo dhammaystiro miisaanku waa labada dhinac la isku dhereershaay dhoomaha isla eg waa wuxuu kula dhaqaaqaa hamuhu hadday dhiman yihiin dheelli baa dilay dhafaraan adkayn iyo xarkuhu dhiil ma celiyaane war waa dhaanku dirir ceelashuna dhixitin weeyaan layligu dhibaalkama bixiyo dhiraha maadaysi dhuuxiisu awraan adkayn looma dhaansado dhogoryaraha naaxaad culays dhabil u saartaa dhowrkadin haddaad leedaho dhoodi miranaya baarqabkii dhaloonti ayay kuugu dhaqantahay waa inuu dhexyari muuqatiyo dhabi lahaada tuug dhuumanayo iyo libax kuma soo dhaco qaalma aad dharkayn moodo oo dhegiyo maamuus leh oo dherarka lala yaabo baad ugu dhawaataa marse haddii dhukaan lagu dariyo kii la wada dhaafay maalintaa wuxuu kuu dhalaa qaar dhiggiisa dhicis lagama waayiyo inay dhawar xumaataa geediga dhagugani hadduu kadisu dhaafayo dhinaca soba haddii loo rariyo dhaayinkiiyo dooga dhabanada caleenta leh hadday dhinaca soo saarto oo ay meeshu dhowr leedihiiyo dhiilo lagu seexdo ruwaayada ku nool iyo haddii dhidarku boobayo dhuuriyada lalaysiyo shabeel dhuunta ka hingoodo war waa dhigax rogaalayn tashiga lagu dhaqaaqaaye ninkii ooda dheeraynaya dhacanta kuu jiida iyo kaan xeriyaba kuu dhigayn laysma dhaafsado weligiiba geel waa dhunkaal dhugiyo aarla dhayalna looma foofsado haddaan dhowr la mootiine meel waranku dhaantaynayaa dheeho oloshaa dhida laysku weeraray rag waa kala dhaqaaqaaye dhuxulaha nin xiisaynayoo dhiiran baa jire dhoy midaan lahayn iyo fuluhu kuma dhowaadaan dhufaysyada ma hayn karo nimaan dhagari saarnayne inkastay dhimbila jeexdo iyo dhamacda baaruudda dhiigyacabka iyo geesigaa dheelma galabtaa shisheeyuhu dhugmada u watiyo taadu kala dheere dhismahaaga waa nacabtihiyo dhaqanka diimeedii waxaa lacagta loo dhiibayaa saad u dhimataan dhulkii baa la sheegtiyo baddii dhumucda weyneyd dhagax dahaba iyo luulka waa loo dhutinayaa dheemantiyo ugaadhana horay uga dhammaysteen nin waliba dhaqaaluu sitaa waana kala dhiil raggu waa waddani kuu dhinta oo dhuuxa kuu shuba ninna dhuuni raac buu wadnaha kuu dhambalayaa dharaartaynu joogniyo haddeer dheesha soconaysa waa loo dhan yahay been haddaan layska dhaadhicine waa inaad u dhiibtaan raggaan cidinla dhaafaynin wabilaahi towfiiq